afayeenka aqalka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Saleebaan Dhuxul oo warbaahinta dawladda kula hadlay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee caasimadda Hargeysa ayaa si adag uga hadlay hadallo ka soo yeeray urur aan sharci ahayn iskuna cumaamaday madasha wada tashiga iyo toosinta qaranka kana hadlay arrimaha doorashooyinka iyo waxa laga yeeli doono 26 Juun ee fooda inaga soo haysa afayeenku waxa uu ku tilmaamay ururkaasi kuwa sharciga baalmarsan waxa uga digay in hadallada sida fudud uga soo baxaya ay ka faa'iideystaan cadawga Soomaaliland afayeenku maruu ka hadlay arrimahaasi ayaa waxa uu yiri runtii waxaan idinku yeedhay maanta eray xalay ka yimid golo isku magacowday madasha inaan kelmad ka yiraahdo runtii waxaanu joognaa dal nabada madax banaan dadkiisa iyo dalkiisu ay u tashadeen heerka lagu soo gaarsiiyay wadajir iyo iskaashi aan kaga midho dhalinay nimankaasi lagu magacaabo madasha oo marka horeba aan sharciyad ku dhisnayn ayaa xalay toona intay soo fadhiisteen TV-da waxay yiraahdeen 26 Juun ummaddu isku timaado dawladda dhisato shacabka Soomaaliland muddo dheer oo fara badan bay tacab soo galiyeen dawladnimadii shalay jirtay baa maanta jiri doonta 26 Juun jiri doonta 27 Juun jiri doonta dawlad intay ummadda isku timaado ay dhisaysaa ma jirtay shacabka Soomaaliland cid bay igmadeen talada dalkan ay u dhiibteen cidaasa ka mas'uul noqonaysa cidaasa taladeeda ay ku ogyihiin waxa runtii la yaab leh nimankaasi hadlayay niman fara badan oo waxa ku jira dalkan tacab fara badan oo ka soo galay haddana u muuqda maanta ereyada ka soo baxaya inay u muuqdaan in cadawga Soomaaliland u salaan ka soo dhigan karo war cadawga Soomaaliland salaan ha u noqonina markaad idinku hadashaan baa kuwa hal qor ku xireysan oo afsiyoona ku xireysan ay hanqalka la soo kacaan oo wax naga sheegan cidii tacab dalkan ka soo galay waa inay la xijaro u yeelataa waa inay qiimo u yeelataa waa inay sharaf u yeelataa geesta kale afayeenku waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in madasha wada tashigu ay golaha guurtida ee Soomaaliland ay ku sheegaan waxaanay geyin kana qabanin hase yeeshee waxa uu xasuusiyay ururkaasi aan sharciga ahayn kaalinta ay golaha guurtida ee Soomaaliland ay ku lahaayeen dhismaha qaranka kuna yeelan doonaan hanaankii geedi socodee qaranka Soomaaliland gabagabadii afayeenka madaxtooyada Soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumadda maanta jirta ay bedeli doonto oo kaliya xukuumad sharciya